مسؤوليته حزبك معارضك وطني قبل كأوضل أو يجو مانتا شركة يدكو قبتي حفيز كاي كل يهين مقالة بورمي حروت قبل كا أي وحي كور بحيان حكومة مدحوين السيلانيو فرقلين تايكو أيسو أقل كقولها وكيل هذا يبوب وحي ويرن بوب يهانتي بلشة أي بوب يسواسد هذا الكودجين حكومة وهجاميو مدحوين السيلانيو يجو أرمها سكا هذلينا هذا لدودي وحكم ده. دعوة شركة عظيمة كلها شرعية جنتها السماء وفرنتي هاي دعوة أمك وأطلقها دعوة أمك وأطلقها دعوة النوع وكل خليل وقاكي كلها وكيلة السماء وكلها شرعية جنتها درجة هذه في شرعية اللي قد تشيل لها اللي إلى لها اللي قد الكورية وفوضية قصة حكومة الجليسون قرر كنا قصة الجليسون هذه بانو عباريننا وقد أدقنا وكو عباريننا وحي شركة دعاي قلها وكيلة وحنا ندوش وصارينا حكومة وقرولين كيه مدحوين السيراني حالي مدحوين شنتي سنة كعادة معطي شن شوي كوغو نقطي ونصيبك وحنا حاد الميل بنان شرع دجينتا لا صعو ومدحوين adiga way ka dhamaatay shantii sanadood sharci shaaka dhigtay sharci show taasoo ku mashquulshay sidii hantida dalka hadu boobaysay ayaa saacadii dabadaada ka wareegtay ha ku mashquulin hantidan dad baa ilaashanaya ummad baa ilaashanaysa ummad baa ka dambaysa ummad baa ka horeysay inaad maanta tiraahdo waxaba waan aniga waxaba aniga isku monoqonayso taasi dhici mayso demokrasi loo hanjabi maayo oo dawladdu u cagajibreyn mayso hataa lagu sii socdo sida barbaray adaale hantida ee ilaasho hargeysa kuwa degana ee la siiyay hantida qarankada waa laga qaaday reerkiisa iniga yeelanay hantidiina haddii sharciga lagu gudbo madaxweyne iyo gudoomiye baarlamaan iyo maxkamaddu waa kuwa dalka ugu sarreeya soo wada duub oo arintii shalayto ka dhacday aqalka golaha wakiilada Somaliland ayaa iyadu waxay noqotay dhacdadii ugu foosho xumeyd ee gabi ahaanba ka dhacda aqalkaasi waa Jaamac Xuseen Jaamacadda Somaliland Space Channel Borama.